haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da waana qayb shanaad oo ka mid ah hiddaha ergada iyo ergeynta. dhegaystayaal ulajeeda ahaan hawsha ay ergada u dirsan jireen waxay ku koobnayd in si nabadgelyo ah ay kula soo noqoto xaq ay markaa ku raad joogaan, xaq noqon kara mag laga duudsiyey amaba ahaan kara xoolo meesiga geela u badanoo jeer hore inta lagu soo duulay laga dhacay. waa hab soomaalidii raacatada ahayd ay soo rogtay waaye ay u baahatay farsamo lagu kala baxo oo dirir iyo gacanka hadalba ka duwan. waa hanaan ay dhiig daadan lahaa dhaaxba ku baajiyeenoo sidaan barnaamijyadii hore qaarkood ku soo sheegay u eg waxa aynu eegga diblomaasiyadda u naqaan ee saldhigga u ah furdaaminta ismaandhaafka ummadaha dunida ka dhex dhasha. hawsha ergaduse wax fudud ma aha. iyagu hadday rabaan wixii ka maqnaa inay nabad ku soo ceshadaan, mar walba hubaal ma aha qolada ay wax u sheeganayaan inay la mid tahayoo ay iyaguna doonayaan arrintu inay heshiis iyo wanaag ku dhammaato. waxay u badnayd cidaha xaqa loo sheeganayaa inay dafiraanoo ay kulanka horeba ergada ka horgeeyaan hebelka aad magtiisa naga doonaysaan annagu ma aanu dilin, ama xoolaha noo celiya aad leedihiin idinkama hayno, xeryahayagana kuma jiraan. ama waxay ku yidhaahdaan waa runoo hebelkiinii gacantayada ayuu ku baxay, magse ka bixin mayno oo waataydun kal hore meel hebla ina hebelkii annaga ahaa aad ku disheen. sidaa darteedna geel maga maanta naga dareerin maysaanoo gardaraad ku socotaane inta aan gacmahayaga wax idinka gaarin reerihiinni isaga caymada. markaas oo kale ayaa waxaa la xusuusan jiray siday run u tahayna lala yaabi jiray mahmaahdii soomaaliyeed ee ahayd wax rag kaa galay raka kaa gale. hase ahaatee doodaas gagta ah ee badanaa ragga da'da yari ay kaga naxsan jireen ergadu kuma ay quusan jirine dhabar adayg bay ka sii qaadi jirtay. waa rag markoodii horeba la soo soocay oo waxgarad u badan, aftahan wada ah, geedjoog miiran ah, dulqaadkooduna uu xaddhaaf yahay. sidaa darteed bay waxay ka dhursugi jireen hadal dhaama midkaa ay maqleenoo ka soo yeera odayada qaarka nabadka talinta ku caanbaxay, kuwaasoo geedkii loo fadhiistaba wadaxaajoodku inuu burburo ka badbaadin jiray. aalaaba waxaa ergada hormari jiray gabyaal la yaqaan oo haddii loo garaabi waayo maansada ciirsi bidi jiray. sidaad ku maqasheen gabaygii cali dhuuxmarin jirayee toddobaadkii hore aan idiin soo gudbiyey, wuxuu markaas oo kale gabyaaga soomaaliyeed adeegsan jiray dabuub walba oo qolada wax ka haysa uu kaga soo ceshan karo. inta badanna waxaa doodiisa saldhig u ah waannu kari karaynaa inaan xoog idinkaga soo dhacsanno xaqa aydu naga haysaan, waxsaan door bidaynaa waxaa nooga kiin maqan inaannu nabad idinkaga helo. cali dhuux ka sokowna maansayahanadii inta ergeeyey hawshii ay galeen maansada ku taariikheeyey waxaa ka mid ahaa gabyaal la odhan jiray sharbaarka cilmi xariyan oo noolaa bartamihii qarnigii 19aad ilaa qaybihii hore ee kii 20aad. wuxuu ahaa gobollada dhexe ee dhulka soomaalida gabyaal si aadah xilligiisii looga maamuusi jiray. qiyaasta goor ku beegan isgalihii 2 qarni ee aynu soo dhaafnay ayaa goor subaxa degmadii uu sharbaarka odayga u ahaa col ku soo waabariistay. lo ay lahaayeen ayaa laga moora duugay. dabadeedna maalmo kadib waxaa soo celinteeda ka ergeeyey sharmaarka iyo diini cilmi oo ay walaala ahaayeen, qudhiisana ay bulshadu aad u tixgelin jirtay. degmadii lo'da ka soo dhacday ayay isa sii dul taageen, iyaga oo rumaysan markii labadooda magac la maqlo in si degdeg ah xoolahooda loogu soo naqi doono. nasiib darro taasi ma dhicin. waxaaba laga hor keenay maya aan waanwaan lahayn. kaaga darane iyaga oo ergeyntii aan ka quusane weli la xaajoonaya ayaa waxaa isla degmadii soo galay kuna dhex furtay awr safara niman wata oo masago ganac ahi ay ugu raran tahay. isla markiibana labadoodii oo indhahoodu shan yihiin ayaa lo'doodii inta lagu tagrifalay masagadii uu safarku watay lagu iibsaday. dabadeedna siday xalaashoodii tahay lagu allabariyey. markaas oo kale
waa sidii laga filaayay sharmaarka oo lo'dii in loo soo celiyo aan rajo badan ka qabin ayaa xagga maansada u bayray gabay dheer oo murti iyo hogatus miirana ayuu tiriyey kaasoo aan maanta idinka maqashiinayo tuducyadii goodiga ahaa ee ku jiray nimanka lo'diista haystana uu ugu boholo qodayay wuxuu ugu hanjabayaa dagaalyahano caan ahaayo ay xigta ahaayeen iyo suldaan yuusuf cali oo kelediid loo yaqiin hobyane ka talin jiray kaasoo kol walba diyaar u ahaa hadduu weydiisto inuu hub soo siiyo waxaa gabaygiisi ka mid ahaa geedkii macluuma bir waa lagala maataaye niman magacyo weyn baanahoo lagu murweeyaay makaab iyo makaab inaannu nahay maalka nagu siiya lo'da masagada la siisanahayoo lagu muraadaysan malag loo dhintay leedahay maalka nagu siiya mataan iyo haddaan maxamed deer meel wax ugu sheego ma wigii ilaa wiyo haddaan cali u maangaysto ilmaadeera mudan baa jiree maalka nagu siiya xididkaa markaba oo murtila waa la mahadshaaye haddaan yuusuf cali mood ilaa maydalse u geeyo isagaa ninkii magan galaa mahad ka sheegtaaye madfac iyo dab baan heli karaa maalka nagu siiya hadalkaasaan kuu mariyey waa nabad macaankeeda labadeenna meelood haddaan kale muraad weyno ninba dhalashadii inuu mintidi maalka nagu siiya buy maansada ergeynta daaran kolka uu gabyaagu tirinayo qolada uu wax kaga doonayo waxyaabaha uu ku beerdulucsado waxaa ka mid ah ragga ergadiisa ku jira qaarkood cirada madaxyadooda ka muuqata taasoo ay tahay inay ka xishoodaan aw yuusuf cali xilsi aw yuusuf barre oo geel laga dhacay ka ergeeyey waa kii odhan jiray nin ciro leh cadaabkiiba waa lagala ceesaaye rag caddaaday baa nagu jiree geela noogu cesha isla geelaas intii uu ergadiisa ahaa ayuu aw yuusuf gabay kala tiriyey tuduc gabaygaa ku jiray ayuu nimankii geela ka hayay wuxuu ku xusuusiyey da'diisa weyn iyo inuu 63 jir yahay taasoo ah nabadgelyo ee naxariisi korkiisa ha ahaatee da'dii uu nebi maxamed ku geeriyooday wuxuu yidhi 63 baan jiray oo sayncaddaan ahaye sanadii rasuulkiyo waxaa siman gugaygii duul laga sariigtaa jiree geela igu siiya murtida faraha badan ee Soomaalidu ay ergada iyo ergeynta ku xustay waxaa ka mid ah midda ah ergadu mar waa miskiin marna waa maslaxo marna waa masiibo mar waa miskiin oo waa marka ay guryahaaga joogto ee ay nabadda wax kaaga doonayso adiguna wixii aad doonto aad ku fali karayso marna waa maslaxo oo waa marka inta la dhagaysto la maamuuso oo xaqii ay doonayeen faraha laga saaro nabad muddo dheer lagu naaloodo ayaa ka dhalata marna waa masiibo oo waa marka la laayo ama inta la aflagaadeeyo hunga lagu diro halkii xaqooda laga siin lahaa colaad aan si fudud ku baabi'in ayaa ka aloosbi jirtay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga waayo toddobaadka soo aadan iyo barnaamij suugaareed kale hadduu eebba idmo xagaag axmed faarax cali idaaja aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha ayuuna inala socodsiinayay